maanta waxaan soo diyaarinaa cashir aad u wanaagsan magaciisa la yiraahdo wax walba waa xalaal laakiin wax walba ma roona. waxay rabaan inay nagala hadlaan in wax kasta xalaal ay u yihiin laakiin wax kasta u rooneen bay burburinayaan. waxayna leeyihiin waxaa jira waxyaabo iga xaraam ah. wuxuu rabbiga leeyahay waxa aan la cuni karin waxa waaye waxa ilaahayda kale loo gowracay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ذكر النقد ما أنتم مقال ير بان كفل عندنا إن شاء الله تعالى مقالكم النبي سنينا وحي أن كأران كرنا من كأرنينا إن شاء الله تعالى أنا سود دعوانا مقال سود بعد ولا ليال دمان ما أنتم حين سود ديارنا عشر أد ونكسر مجلس اللي هذا وحول بوا حلال لكن وحول بمرهنا. وأنا السؤال إذا نسوي ويدين محا مسيحين ذاتين محا إذين حلال محا سيدين كحرام إذا ويدين مركي تابك إله إياه أساسنا له وحول بوانو حلال لكن وحول بوانو مرهونا وحول بوانو حلال هل مر وحيانا عننا هل كمر روا مركشانية إن نعديس أم نعديس هل كمر وحويان ولا المحيط وحكو قرنتا كتابك كورنتيان كسوهوات طبعا لواتين سجد وحكو قرن وحو ربي قال لي هاي محا أن لعنك وحوا وحا إلهي ذا كلا لوغو رعي sida aan ku maqalnay hadalkooda waxay rabaan inay nagala hadlaan in wax kasta xalaal ay u yihiin laakiin wax kasta u rooneen ayadoo ay sidaas tahay bay jumladii hore ee ah wax kasta waa ii xalaal bay burburinayaan. waxayna leeyihiin waxaa jira waxyaabo iga xaraam ah waxaana ka mid ah waxyaabaha magacyada ilaahyada kale lagu gowraco kuwaas waa naga xaraam. marka taas waxay burinaysaa inay wax kasta ayaga xalaal u yihiin maadaama ay sheegeen shay ka xaraam ah. bal haddana aan dhageysano waxa ay ka dhahaan geelaha iyo waxa ay ka aaminsan yihiin ayaga marka loo fiiriyo xaggooda. ilaah laakiin wuxuu ugu horreeyay uu kitaabka quduuska ku sheegay oo la leeyahay aan la cunin oo yahuudi markii cuntadii xalaashay cuntadii maxay tahay xaraanta la kala yiri oo kale ama cuntada nadiifka ah iyo kuwa aan nadiifka ahayn oo kale xaybaan kala yiri oo kale to waxa weeyaan waxa ugu horreeyay waxa waaye geela shiino laakiin geela Soomaalida aad bay u jecel yihiin carabtana kaadidiisa bacdaanba sida aan wada maqalnay waxayna leeyihiin geelaha waa xaraam. marka su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay hadduu geela xaraam yahay maxaa keenay nin shay ilaah xarimay haysto in loogu yeero nin wanaagsan oo ilaah ka cabsanayo. tusaale ahaan haddaan aragno qof khamro iibinayo annagoo og inay khamrada xaaraan tahay ma dhihi karno qofkaas khamrada iibinaya waa qof wanaagsan sababtoo ah shay ilaah xarimay buu iibinayaa. sidoo kale sida ku xusan buugga Ayuub cutubka koobaad markaad akhrisid waxaad ku arkaysaa Ayuub inuu ahaa nin wanaagsan ilaah ka cabsado uuna haystay 3,000 oo geel ah. marka hadduu haystay shay ilaah xarimay hadduu geela xaraam yahay oo Ayuubna haystay shay ilaah xarimay sidoo ku noqon karaa qof wanaagsan oo ilaah ka cabsada. marka taas waxay tusinaysaa inuu geelaha xaraam uusan ahayn. marka waxaa jirta shay ummadaha loo diiday qaarkood lagu yiri shaygan ha taabanina ama ha cunina. taas macnaheedu ma aha inuu shaygaas xaraam yahay laakiin waa imtixaan ayaga lagu imtixaamayo la fiirinayo in sharcigaas ay raacayaan. marka aniga oonan isticmaalin faqra ku taala Bible-ka arrintaas shiinaha inoo xaqiijiyo. marka ilaah wuxuu u baneeyay waxyaabo qaarna wuu ka xaraantimeeyay isagoo markaas ma artay oo muujinayo in sharciyadiisa ay adkaynayaan oo ay raacayaan in kale